14 qof oo ay ku jiraan 6 caruur ayaa ku dhintay qarax ka dhacay warshad kiimika ah oo ku taala gobolka Punjab ee dalka Pakistan sida saraakiishu ay sheegeen. Fayeen u hadlay kooxda samata bixinta ee Punjab ayaa sheegay in qaraxa uu dhacay xilli subaxnimo ah wuxuuna qaraxa ka dhashay qaybta wax kululeysa ee warshada. Wuxuu qaraxu sababay in ay dumaan saqafyada dhowr dhismo ah iyo guryo ku dhawaa warshada. Dhanka kale ciidamada ammaanka ee dalka Nigeria ayaa raadinayay in ka badan 20 gabdhood oo arday ah oo la afduubtay. Wasaaradda warfaafinta ee Nigeria ayaa kala hor sheegtay in saraakiisha ammaanka ee wadankaasi ay heegan sare galeen. 24 gabdhood ee la raadinayay ayaa dhiganayay dugsi sare oo ku yaala magaalada Maga ee gobolka Kebbi ee waqooyi galbeed dalka Nigeria. aan ku bilaabay boqolaal beeraley ah oo ku nool deegaanka Arabsiya ee Somaliland ayaa wajahaya dhaqaale darro saameyn ku yeelatay noloshooda. xaaladan ayaa mid ay wajaheen markii uu cayayaan ku habsaday dalagyo ay guran lahaayeen. nolol xumada waxa uu dheer in loo haysto deymo ay qaateen oo ay ku qarash gareeyeen tacabkii ka khasaaray. Sabaax Aqli Maxamed ayaa warbixintan ku eegaysa sida cayayaanka uu saameeyay nolosha qoysaskan oo ku tiirsanaa beeraha oo kaliya. In ka badan 500 oo beeraley ah ayaa wajahaya dhaqaale xumo, cunno yari iyo in lagu yeesho deymo aanay bixin karin iyo inay awoodi waayaan in carruurta ka bixiyaan waxbarashada. xaaladan ayaa ku timid markii uu cayayaan ku habsaday beeraha bishii September kaas oo baabi'iyay dalagyo iyo kuwa soo go'i rabay. waa qoysas ku nool deegaanka Arabsiyo ee gobolka Gabiley oo ku tiirsan wax soo saarka beeraha oo kaliya. dadka arintani ay saameysay waxa kamid ah Ismaaciil Cabdi Xasan. wuxuu sheegay inaanu heli karin dhaqaale uu ku maareeyo nolosha qoyskiisa. dalagyo kala ah galey, yaanyo, basal, basbaas, barbarooni iyo kaabash oo uu guran lahaa bishii October ayuu xusay in gabi ahaanba uu cayayaanku cunay beertiisa oo 6 hektar ah. ayuu tilmaamay inaanay waxba uga badbaadin. halkii uu faa'iido ka sugayay ayuu tilmaamay in lagu yeeshay lacag $2,000 ah oo uu geliyay beerta. xaaladan ayuu sheegay inay ku beertay jahawareer iyo quus. anagu dad beeraley ayaan nahay oo had jeer oo beerta mooyaane wax kale aan garanayn. waxa weeyaan niyad fara badan buu nagu leeyahay in noloshii qoysaska aan ku biilinay ay hoos u dhigtay. anagu beerta baanu ka shaqaysanaa magaalada kama shaqayno. ninkan oo ah aabaha 6 caruur ah ayaa tilmaamay in qasaaraha soo gaadhay uu sababay in noloshu ku adkaato. sida kaliya ee hadda uu ku dabaro reerka ayaa ah deyn uu dukaamo ka soo qaato. wuxuu sheegay inaanay ahayn mid waqti dheer u sii soconaysa oo ku simaysa inta uu ka soo kabanayo. hubanti la'aantaasi waa mid warwar joogto ah ku haysa xalna uu u leeyahay. Ismaaciil ayaa faahfaahin ka bixiyay jihada uu cayayaanku uga yimid iyo astaamaha uu leeyahay. cayayaankani waxa uu ka yimid wadanka Latin America la yiraahdo ka yimid. waxa aanu soo maray Africa wuxuu ka soo galay wadana la yiraahdo Maqribka markuu soo gudbay wuxuu soo galay Ethiopia. inaga markaa Ethiopia naga soo galay. Ethiopia sidii nooga soo galayna waxa weeyaan tamaandooyinka laga keenayo oo xanuunada qaba ayuu soo raacay. marka wax aliye wax lagu tacaala oo aanu itaal ka wanayna ma jirto. bahalkani waxa uu wuxuu soo maraa marxalado fara badan. 8 marxalad buu bahalkan maraa. marka ugu horeysa waa sidii macno diir oo kale ayuu noqdaa. xabadu waxay dhashaa xabadu halkii kaliya 1000 xabadood oo ugaxna. dabadeedna waxa uu soo maraa sida kubajaaga ayuu noqdaa. hadda baalkan waxa uu jira xilliga qaboobaha iyo xilliga kuleelaha ayuu jira baalkan uu aad u dagaalama oo qofduna ay u baahan tahay inay markaa ay korto ay koritaanka ayuu ka ilaalin ay u diidan. Ismaaciil ayaa intaas ku daray in dhaqaale burburka uu ka dhaxlay cayayaanka uu sidoo kale saameyn ku yeelanayo waxbarashada carruurtiisa. 4 carruur ah oo jaamacad u dhigta ayuu sheegay inaanu gacanta ku hayn $250 oo laga rabo marka ay dhamaato bisha November. Ismaaciil ayaa sheegay in beertii uu kaligeed ku tiirsanaa ee isha dhaqaale u ahayd aanu awoodin in mar kale uu dib u tabcado. dhaqaale xumo iyo cayayaanka oo wali jooga awgeed. xilligan waxa la gelayaa biyo la'aan baa jirta. haddii aan mar labaad ku celin lahayn biyo la'aan baa jirta. markaasi lagu soo celiyo wallahi ma garan. haddii dalaga sidaa loogu sii daawado dhibaato fara badan ayaa ka dhacaysa wadanka oo cuntooyinkii la cunayay sida ganowga amba arabkhida oo kale uu saameyn doono haddii ilaahay naftiinoo daayo. beeraleyda ayaa xusay in cayayaanka oo aanay garanayn inuu yahay mid dalaga ku baabi'inaya wax ka yar 1 bil isagoo cunaya midhaha iyo caleemaha kadibna qalajinaya geedaha.
waxay tilmaameen inay ku guuldaraysteen ka hortegista xataa hadday kula tacaaleen daawooyin iyo habab kale oo dabiici ah. Mukhtaar Ibraahim Maxamuud wuxuu ka mid yahay beeralayda uu caydheeyay. Wuxuu xusay inuu ka baabi'iyay khudaar gurashadeedu ay ka dhinayd 2 toddobaad ama 2 usbuuc oo ugu taalay beertiisa oo 4 hektar ah. Tan iyo bishii Oktoobar ayuu sheegay in qoyskiisa oo 5 qof ah ay wajahayaan nolol xumo ka dhalatay tacabkii ka khasaaray. Reerka ayuu xusay inuu ku dabaro deymo uu qaato oo hadda gaadhay ilaa $500. Wallaahi waxaan dareemay horta qof muslim aan nahayo dadka muslimku inta badan waa inay samir iyo dareemaan wanaag iyo farxad. laakiin haddana waad garanaysaa qof dee bilaadan oo wixii uu tabcaday uu meesha dee wax ka yaryaro ka itaal daranoo aanu arkaynu ka awood weyn yahay ay dee kala dagaalamayaan. markaa dee kolley dhaqaala burbur iyo dhaqaala yari baanu dareenay. dhaqaala yari markaad dareentana dee culayska bilaadanku dareemaya waa dareemaysaa. Mukhtaar ayaa tilmaamay in isagoo noloshu ku adag tahay haddana laga doonayo inuu bixiyo deyn $2,000 ah, taasi oo ah qarash uu geliyay beerta oo isugu jira abuur, waraabin, falid, buufin iyo lacagta shaqaalaha. Wuxuu sheegay in qorshihiisu ahaa in bishan uu qudaar u iibgeeyo Arabsiyo iyo deegaanada ku xeeran ayna filashadiisu ahayd inuu ka helo dhaqaale ka badan $4,000, balse taas waxa tirtiray cayayaanka oo gaarsiiyay heer uu awoodi waayo in $80 uu ka bixiyo 3 caruur ah oo u dhigta iskuul iyo dugsi quraan. waxaanu ka soo baxnay xilli abaari dhacday aad u kulul. maanta waxay ahayd beertii maadaama aad joogto wax walba inay ka soo go'aan. marka laakiin maanta waxa noo soo baxay ma jiro. san bilaadanka waa xanuunadu imika u bateen iyo ay noogu soo bateen xanuunada beeruhu. waxaana wuxuu ku wada ximile la socdaa cimilada adduunyada isbedeshay ee kulaylaha u badan. waayo xanuunadan beeruhu waxay aad noogu sii badan yihiin xilliyada ay kulaylka u jiro. helitaanka biyuhu waa mid ku adag deegaanka Arabsiyo. taasi waxay beeralayda ku qasabtay inay qotaan ceelal iyo barkado u gaar ah ama ay iibsadaan biyo lagu dhaamiyo booyado. taasi waa mid u suurta gelisay inay dalagyo beertaan xilli jiilaal ah. Xaliimo Xasan Odowaa oo ah khabiir dhanka beeraha ah kana hawlgasho wasaaradda horumarinta beeraha ee Somaliland una kuurgashay nooca uu yahay cayayaankani ayaa beeralayda siisay talooyin ku aadan qaabka ay ula tacaali karaan. cayayaankaasi waxa weeye nooc kamid ah balanbaalistaas midab ahaan waa dahabi oo balanbaalis weyn oo balanbaalisaha xoogaa ka yara weyn. maalintii inta badan arki maysid laakiin habeenkii bay shaqaysataa. balanbaalistaas wax ku samaysaa dalaga dhibaatada waxaa kamid ah in ay ku dhex dhasho dalaga midhihiisa marka ay yihiin ugurida ama marka ay cagaarka yihiin halkaasna uu ku koro. waxa kaloo ay ku samaysaa way dhex warwareegtaa iyada oo qowdanaysa geedka caleentiisa qaybta loo yaqaano salsaabka. qaybta nafaqada ah ee labada caleentu 3 qaybood bay isugu jirtaa, lakabka sare, lakabka hoose iyo qaybta dhexe loo yaqaano salsaab oo qaybta nafaqada caleentu ay ku jirto. waxaa loola tacaalaa siyaabo badan. waxa ugu muhiimsan in loo helo dabinka oo dabinkaas wuxuu ka samaysan yahay warqad yar oo lagu dhajiyay xabagtaasoo pheromone loo mariyo kabacdina urtaasi ay soo jiidato halkaas ayay dibadda ku ururtaa. xabagtaasi ku dhegta halkaasay ku baaba'daa. waxaa kaloo la sameeyaa in la wanaajiyo waraabka, in laga ilaaliyo haramaha si fiican looga maamulo. beeralayda oo ay muhiim u tahay inay helaan dhaqaale ay ku soo kabtaan, dawladdu waxba kuma taageerin marka laga reebo talooyin ay bixisay wasaaradda beeruhu.